marka ugu horeysa waxaan salaan idinka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre iyo waliba fariin ah in ay dawladda federaalka muhiim u tahay waxna aysan la harayn in nabadgeliyo iyo wadajir kama dambaysa laga gaaro magaalada Gaalkacyo iyo khilaafaadkeedii soo noqnoqday waa arintaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee dawladda waxaan Gaalkacyo ka rabnaa ama dadka deegaanka ka rabnaana ay tahay Gaalkacyo dadkeedii ay wada jiraan oo horumarsan yihiin oo nabadda ka wada shaqeynayaan wax wada qabsanayaan oo meel fog eegayaan oo Gaalkacyo cusub iyo midnimo cusub iyo dhaqan cusub oo iskaashi ay sameynayaan oo waxaan wax ka weyn ay ku xisaabtameen taa ayaa la fiirinaya waxaan aad uga mahadnaqayaa oo hawsha hordhac ah oo aad u wanaagsan oo ay meesha soo gaarsiiseen oo labada dawladood iyo shacabkeeda aad meel wanaagsan ku soo furteen in dadku isdhex galo nabadda ka wada shaqeeyo dhulka wada daaqo wixii ishu arrimaha oo taaganna iyadana la galo arinta annagana waxay noo tahay mudnaanta koowaad bay noo tahay arinta Gaalkacyo dawladdu toos ayay u galaysaa haddii alla idmo waa qorshaha ugu muhiimsan hadda waxa ogtiin soo dhamaaday shirkii dib u heshiisiinta magaalada Muqdisho ku soo dhamaaday waxyaalaha ugu waaweyn oo ka soo baxayna waxa weeye meelaha ay wax ka taagtaagan yihiin sida ugu horeysa loo galo Gaalkacyana ugu horeysa Gaalkacyo muddo dheer ayay waxay ahayd meesha ay ka aloosan tahay qalalaasaha siyaasadeed iyo colaadeed ee Soomaaliya waxay noqon kartaa meesha nabadda Soomaaliya laga soo dabaalo waxay noqon kartaa meel tusaale wanaagsan u noqoto Soomaaliya waxaan qabaa in 40 sano ka bacdi la wada daalan yahay inaan cidna aysan hal ugu dhalin ama aysan caano ku maalin qalalaasihii iyo dhibtii iyo kala qaybsanaantii waxaan qabaa marka sawirkan sawir ka gedisan in reer Gaalkacyo maskaxda ay ku qabtaan oo raadiyaan oo iyagu Soomaaliya ay raadiyaan oo Gaalkacyo cusub iyo mudug cusub iyo dareen cusub ay ku wada shaqeeyaan meeshaan waxay noqon kartaa waxay maantahay wax aad ugu gedisan waxay noqon kartaa xarun ganacsi bay noqon kartaa Soomaaliya bahalkii hormoodka waxay noqon kartaa xarunta midnimada waxay noqon kartaa meesha laga raadiyo dawladda Soomaalida federaalka oo aan dhisayno marka reer Gaalkacyo waxa saaran wax ka weyn waxa isku hayaan xil inta ka weyn baa saaran wax inta ka weyn bayna noqon karaan taa ayaa naga niyada naga qorsho ah naga dadaala oo aan waxba u la harayn waxaan idinkana idinka mahadnaqaynaa dadaalka weyn oo sameeyeen hawshaana waa hawl aynu u dhannahay nabadgelyada iyo wada jirkana waxa la rabaa inaan xoolaheena ku sameeyno iyo xooggeena iyo maskaxdeena meelna in marti looga noqdo marabno waan ka mahadinaynaa beesha caalamka oo iyo dadka Soomaaliyeed oo hawshan ka ah wax ka fududeynayay laakiin nabadgelyada iyo wax qabsiga dadkan iyaga gacmahooda laga rabaa inay xoolahooda galiyaan oo waqtigooda galiyaan oo isku tashigooda galiyaan dadkuna maanta waa ladan yahay waa la gelin karaa waxay u baahan tahay oo kaliya hoggaan waxay u baahan tahay arintaas in tusaale laga dhigto waxay u baahan tahay waxa la fiirin wax ka weyn in la fiiriyo 360 digrii in la fiiriyo waxa ay meeshaan noqon karto in isha lagu qabtaa loo baahan yahay waa hareereen waa ooyeysa waa gubanaysa caruurta aad meeshaan joogta oo iskuulka u baahan oo caafimaadka u baahan oo wax walba u baahan siyaasadda cunmayno haddaynu Soomaaliya siyaasadda cunmayno siyaasadda biil kama dhigan karo iyo iska daba ka wareega waxaan u baahanahay dadkan waxay ku noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo waxba iska daba ka wareegaan inoo dhalimiyaan arintaas waa mas'uuliyad weyn oo dhammaanteen ina saaran waay waxaana rabaa hormuudkeeda inaad qaataan reer Gaalkacyo odayaashu inay qaataan mise waxaan ka dulooynaa qabrigii Cabdullaahi Yuusuf iyo Caydiid oo iyaguba 26 sano ka hor magaaladan heshiis ka gaaray iyo odayaashay dhintay ma awoodi karayno xilli walba dadkiisu leeyahay marka waxa loo baahan yahay in la qaato waajibaadka loo baahan yahay dad kale uma dhalanaya magaaladan dad kale meel kale uga iman mayo hadda waxa Muqdisho iyo Cadaado iyo Garowe intuba meesha nabad bay ka rabaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf iyo madaxweyne Gaas intuba nabad bay ka rabaan idinkuna inaad rabtaan waay laakiin haddaydan idinku rabin oo horboodin cid nabad meeshaan keeni karta malaha arrintan anaga waxba lama harayno mudnaan bay noo tahay laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa aqligiina iyo xoolihiina iyo xooggiina ku xisaabtamaynaa marka arrintaas aynu u diyaar garowno aynu meeshaan wax sida ay maanta tahay si ka duwan oo ka wanaagsanna aan ka wada shaqeyno aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo aaday iyadoo jawigu intii hore uu ka gedisan yahay oo aad isku meel wax u wadaan inta dhimanna waxaan jecelahay inaanu idin kala qayb qaadano beesha caalamka oo Soomaaliya aad ugu jirta iyaga ruuxooda
waxaan ugu baaqayaa runtii meeshaan magaaladan waxay u baahan tahay in la dhiso magaaladan waxay u baahan tahay in beesha caalamku ay timaado hay'aduhu ay yimaadaan maal la geliyo maalgelin lagu sameeyo laga soo baxo xalane xarunta xalane waxa loo baahan yahay beesha caalamku intay ka soo dhex baxdo anaga ruuxay waanu hadda u laanahay aan u mari laanahay inay dhulkaan maalgeliyaan baa la rabaa halkaan inay maalgeliyaan baa la rabaa magaalo kasta iyo maamul goboleed kasta inay tagaan baa la rabaa dalkan in shaqo abuur laga sameeyaa la rabaa marka aan isku tashanno aan hawsha u hawlgallo